markii Ramos uu kaga yaabsaday caalamka xirashada maaliyadda Ozil isagoo ka soo hoosgashtay kiisa waxa uu abuuray mushkilad weyn maxaa ka yeelaya laacib inuu xirto maaliyadda aan ahayntiisa waliba kulan rasmi ah haddana isku dayaya wada kasta inuu u maro sidii saxaafadda ugu muujin lahaa sidoo kale waxa uu sababayaa mushkilad caalami ah waliba qabsatay ciwaanada waaweyn ee jaraa'idyada caalamka Sergio Ramos waa ninka kaliya ee ku dhiiraday tallaabada si ficil ahaan waqti uusan si hubantiya u eegin tallaabada uu qaaday kadib markii mushkilad shakhsi ah u abuurtay laakiin su'aashu waxay tahay muxuu Ramos uga soo xirtay fanaanada Mas'uud Ozil maaliyadiisa qisadu waxay u noqonaysaa sanadkii 2012 markii iswajaheen kooxaha Real Madrid iyo Deportivo La Coruña taasoo Ozil uusan la imaanin qaybtii hore bandhig wanaagsan oo raali gelinaya macalinkiisa kaasoo go'aansaday inuu bedelo dhamaadkii qaybtii hore waxa uu ku bedelay laacib kale ka hor inta uusan ku canaanan bandhigiisii 45 daqiiqo uu ciyaaray waxaan ka doonayaa inaad u wajahdid sida ragga oo kale kuwa ka horjeeda kelmadahan oo ka soo baxay afka Mourinho aad bay u carageliyeen laacibkii hore Arsenal waxaana ay sababeen inuu xakameyn waayo dareenkiisa isagoo ku falceliyay haddii aad sidan u weyntahay maxaadan garoon u galin oo aadan kubad u ciyaarin waqtigaasi Mourinho waxa uu doonay inuu la ciyaaro ciyaar maskaxeed uu abuuraysa dareen iyo dhiirigelin uu ku soo bandhigayo mustawihiisa ugu wanaagsan laakiin uma qaabilin sidii ugu fiicnayd waxa uu jeexjeexay fanaanadii kooxda Malaki iyagoo ay eegayaan dhammaan laacibiinta gudaha qolka labiska kadibna waxa uu ku tuuray Mourinho hoostiisa waliba qaabaan la jeclaysan dabcan Mourinho waxa uu leeyahay in ku filan oo madax adayga waana sii waday dandaansiga laacibkiisii isagoo leh haye adigu maahid Zidane alla maxaad fulay tahay maxaad doonaysaa inaad madaxaaga shaambo ku shubatid wajigayga ka hortag Mas'uud Ozil ayaa u laqay si aan u cuntamin hadaladii macalinkiisa isagoo u fariistay kursiga kaydka maslaxadda Ricardo Kaka waqtigaasi Ramos waxa uu ahaa mid ka mid ah cadawga uu leeyahay ninka reer Portugal waxa uu ahaa in aad looga garanayo qolka labiska lagana warhayo waxa uu ku fakarayay si uu muujiyo tababaraha Portugalska inuu qaldan yahay waxa uu qaatay fanaanada Mas'uud oo ka soo hoos xirtay maaliyadiisa waana wixii dhibaatada sii kordhiyay iyadoo la aaminsan yahay in tallaabadaasi ay ahayd qayb ka mid ah kuwii soo dadajiyay ceyrintii Mourinho dadkii daawaday kulanka waxay arkayeen nambarka 10aad oo ka ifaya dhabarka dambe ee Sergio Ramos waxa ugu weyn ee maskaxdiisa ka gooxay waxay ahaayeen inuu dhaliyo gool si uu isaga siibo fanaanada sare kulana dabaaldego jamaahiirta isagoo xiran maaliyadda Ozil waqtigaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah saaxiibadiisii ugu dhawaa marka la eego shaxda naadiga Malaki Ramos waa saaxiibkayga igu dhow Real Madrid aniga ahaantayda waa difaaca ugu fiican caalamka sidaasina waxa ku hadaaqay Mas'uud ka bixitaankii Mas'uud garoonka Santiago Bernabeu iyo aadida naadiga Arsenal waxa uu ahaa arin saameyn toos ah ku lahaa Sergio kaasoo isagu ka yiri saaxiibkiisa haddii aan anigu lahaan lahaa go'aanka Mas'uud waa laacibka ugu dambeeyaan ku fakaro iibintiisa isagu waa laacib ka socan kuwa kale bixitaankiisuna waxa uu sababayaa murugo badan halkani waa dunida ciyaaraha fadlan followde si share gare saaxiibadiina la wadaaga wadna ku mahadsantahay soo booqashada barteena